qasriga looga arrimiyo boqortooyada Ingiriiska ee Buckingham ayaa la sheegay inay ka banaan tahay shaqo, taasoo la sheegay in shaqsiga ku habboon shaqadaas la siin doono mushahar waaliya. boqortooyada Ingiriiska ayaa doonaysa inay hesho shaqsi awooda in uu u tolo dhararka ku xardhan derbiyada qasrigaas. sidoo kale boqortooyada ayaa hoosta ka xariiqday in shaqaalaha ay ku baahan yihiin uusan ku koobnaan doonin Buckingham. uu sidoo kale ka howlgeli doono oo uu qaban doono meelaha kale ee looga arrimiyo dalweynaha Britain. bayaan hore loo daabacay ayaa ku qornaa mushaharka shaqsiga dhexdhexaadka dalka Ingiriiska ayaa noqonaya sanadkiiba 27,000 oo gini, balse boqortooyada ayaa doonaysa inay ku abaalmariso shaqsiga u qabanaya hawsha ay soo bandhigeen lacag dhan 22,000 oo gini. ugu dambeyn waxaa xusid mudan in sidoo kale boqortooyada Ingiriiska ay dalbadeen shaqaale cuno karin karo. bartamihii sanadkii hore waxa ay ku doonayeen lacag qiimaheedu gaarayso ilaa 17,000 oo gini. waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Cabdiraxmaan Cali. wixii talo iyo tusaale ahaa fikirkaaga commentiga nagu reeb xagga hoose. si aad u daawato wixii cusub iyo mowduucyo faa'iido badan leh ku taxnaw oo taaba subscribe